أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد رزاق عبد الله وmaanta halkaan idinkugu soo gudbin doona cashar aad muhiim u ah. casharkaasoo idinkugu tusi doono sidee loo sameeyaa petty cash management adigoo isticmaalaya Excel. So petty cashku waxaa loola jeedaa waa lacagta yar ee shirkadda u isticmaaleyso inay ku furdaamiso qarashaadkeeda yaryar ama waxaa loo yaqaano day to day expenses. So sida aan ognahayba company waxaa account ugu furan yahay bangiga, kaasoo lacagaha maalintii la shaqeeyo oo dhan iyo jeegiska maalintii la qabto oo dhan dhammaadka maalintaasi waxaa la geyn doonaa bangiga. So marka maadaama lacagihii dhan la geyn doono bangiga, so companyga muxuu u baahan yahay? Companyga wuxuu u baahan yahay soo maaha lacaga yaryar oo uu ku furdaamiyo qarashaadkiisa yaryar ee aan suurtagal ka ahayn in jeeg loo qoraa oo bangiga laga doontaa. tusaale ahaan qof xamaali oo kale ayaa wuxuu inoo keenay alaab. soo suurtagal ma tahay qofka xamaaliga ah inaan u qornaa jeeg oo aanan abax shirkadda aadi ka doono? soo suurtagal maaha. soo kale waxaa la mid ah oo kale naagta shaahleyda oo kale, shaah inoo keentay ama shaqaalaheena qaar ka mid ay shaah u keentay. soo suurtagal ma tahay jeeg in loo qoraa oo la bax shirkadda bangiga aadi bangiga kasoo qaado? soo suurtagal maaha. qarashaadka noocaas oo kale waxaa loo baahan yahay lacago lagu furdaamiyo oo loo yaqaano petty cash. so petty cashkaasi haddii adiga lagu dhiibaa, sidee baad si yar oo fudud ugu maamuli kartaa adigoo isticmaalaya Excel ayaa maanta rabaa inaan halkaan idinkugu tuso. First waxaan halkaan ku haystaa table uu ka bilaabanayo date. Date-ka waxaan ku qori doonaa establishment date, date-ka lagu dhiibay petty cash lacagtiisa iyo expenses-ka deedii aad bixiso dhan ayaad halkaan ku qoraysaa. soo halkaan waxaan ku qoraysaa description, faahfaahin wixii aad ku bixisay ayaad halkaan ku qoraysaa. laakiin anigu waxaan u isticmaali rabaa ayaa waxay tahay account-adan expenses-ka ayaan u isticmaali rabaa. numberka wuxuu noqon doonaa invoice number. so petty cashka numberkiisa ayuu noqon doonaa. receptiska wuxuu noqon doonaa lacagii aad heshay. paymentiskuna waa lacagii aad bixisay ee expenses ku bixisay. balanceiguna wuxuu noqon doonaa haraaga. okay, so halkaan aan imaado first waa establishment date ama xilligii petty cashka lagu dhiibay. tusaale ahaan oo kale beginning balance ama balancega waxa weeyaan kowda taariikhdeeda 1 bisha 10aad 2018 oo kale. tab aan dhaho. so halkaan waxaan ku qori doonaa description waa beginning balance. tab aan dhihi doonaa. so number ma jiro. receptiska lacagta dhiidhii waa 300. dan tab ayaan dhihi doonaa. so halkaan ayaan imaan doonaa. balance wuxuu noqon doonaa 300 Soomaa maadaama 300 la dhiibay. so equal aan dhihi doonaa. dan waxaa imaan doonaa receptiga salkiisa imaan doonaa. dan waxaa ku dhihi doonaa lift click. dan waxaan dhihi doonaa enter. so lacagta la dhiibay 300 weeyaan, balancega waa 300. so soo kale waxaan imaan doonaa salkaan waxaan qori doonaa kowda bisha 10aad 2018. isla maalintaasba ayaan waxaan rabaa inaan bixiyo expenses. so aan bixiya ma xumo intaanan bixinin ka hor. so aniga descriptionka waxaan u isticmaali rabaa saan hore kugu soo sheegaba expensedan ayaan u isticmaali doonaa. so expensedani waa expenseyada aan u bixin doono petty cashka. so maadaama expensedan aan u bixin doono, so way igu adagtahay inaan mar walba qorqoraa. waxaan u sameysan doonaa waxa la yidhaahdo drop down list. so drop down list aan u sameeyaa waan highlight gareyn doonaa ilaa intaan u baahanahay. dan waxaa imaan doonaa data. then data validation ayaan click ku siin doonaa data validation. then waxaan ka dooran doonaa meesha any value ah list. so waxaan imaan doonaa sourceskan. then waxaan dhihi doonaa meeshaas ayaan click ku siin doonaa. then expensedan ayaan soo highlight gareysan doonaa. then waxaan dhihi doonaa enter. then waxaan dhihi doonaa okay. so fiir marka halkaan expenses xagga aan ku haysto dhan halkaan ayay igu wada jiraan. soo ujeedaa soo ma?
so hadda tusaalahaan isla kooda bisha tobanaad 2018 ayaan waxaan rabaa inaan bixiyo waxa loo yiraahdo coffee expenses. So referencegeedu waa 100 oo kale, paymentska lacagta la bixiyay waa $5 oo kale. So halkaan balance inuu ugu soo qormaan rabaa si automatically ah in balance halkaan igu soo qormaan. Saas ku dhici kartaa. Waxaan sameyn doonaa equal ayaan dhigi doonaa balance-ga inta aan ku haysto. waxaad ku dartaa lacagta receptiga oo isoo gasho selkan ah. Dan waxaad ka jartaa lacagta paymentiga oo aan bixiyay. Dan waxaan dhigi doonaa enter. Dan waxaa la salalko dhan inay iyagana sidaas oo kale balances automatically oo isku sameeyay. Waa soo haraad garan doonaa. So hal cilada timid laakiin cilada timid waxay tahay so halkaan wax kuma qorna date kuma qorna, so halkaan wax kuma qorna, halkaan wax kuma qorna, halkaan wuxuu ii keenay balances. So mar waa anigu waxaan rabaa meesha u dambeysay su'aalaan oo kale coffee expenses ayuu aasoo wuxuu u dambeeyay aan bixinay. So coffee-ga inuu joogo ayaan doonayaa. So balance inuu halkaan noqdo. So inta inaysan waxba iga soo muuqan. So saasay ku dhacaysaa. So halkaan u laabo. So waxaan ku xiri doonaa formula ayaan ku xiri doonaa. Formula soo ah if ayaan dhigi doonaa bracket for. Bracket markaa furto wuxuu ka rabaa logical test. So logical test wuxuu noqon doonaa haddii godkan date-ka equal ayaan dhigi doonaa uu la eg yahay 0. haddii godkani date-ka uusan waxba ku jirin, haddii godkan date-ka equal markaa dhahdo double clue ayaa dhigi doontaa double clue dan comma. haddii waxa weeyaan marka wax kale lagama jeedo, haddii godkani date-ka uu yahay double clue it means 0 uu yahay aysan waxba tira ah ku jirin. soo kale waxaa rabaa balance-gan inuu noqdo 0. idan waxaan dhigi doonaa double clue dan waxaan dhigi doonaa comma then halkaan imaa bracket ku xir. So waa fahantaa weena if weeyaan bracket markaa furto haddii godkan date-ka uu yahay double clue means 0 isan waxba ku jirin. had godkan soo kale soo waxba ku jiro sama halkaan maxaa ku jiro balances ayaa ku jiraan. So halkaan markuu ever yahay waxaan rabaa isla halkaan inay noqoto ever. haddii ay halkaan wax ku jiraanna qaacidadani iyo isticmaal weeyaan. So dan waxaan dhigi doonaa enter. Dan marka halkaan imaado waa soo jiidi doonaa. Okay, waa ujeedaa Soomaa way baabaaday. laakiin weli formulada way ku jirtaa. Hada ujeed formulada way ku jirtaa. Okay, hadda su'aalaan oo kale labada bisha 10aad 2018 ayaa waxaan bixiyay waxa loo yaqaano postage oo numberkeedu uu yahay 0102. waxaan bixiyay lacag gaarayso $10 oo kale 285 automatically. So balance halkaan ayaa kala soconaysa. So markasto aad bixisaa haddii mid kale aad bixisaa 3 bisha 10aad 2018 dan tab dheh. So halkaan imaa halkaan waxa uu jeedaa miscellaneous expense ayaan bixiyay oo invoice-keedu yahay 105. waxaan bixiyay lacag gaarayso $15. si automatically $270 lacag ah ayaa qasanadii igu jirto weeyaan. So balance wuxuu ku sheegi doonaa lacagta markaas qasanada kugu jirto ama lacagta aad hayso. Okay, so intaas markaad sameeyso kadib waxaan imaan doonaa halkaan waxay u qoran expenses-ki. waxaan rabaa inaan ogaado expense kasta inta qarash aan ku bixiyay. So postage expense haddii aan bixiyay inta qarash aan ku bixiyay ama amount ahaan inta postage aan ku bixiyay, packaging inta aan ku bixiyay. So sidaasaan u ogaado waxaan sameyn doonaa kulli ayaan highlight gareyn doonaa. markaan highlight gareeyo waxaan dhigi doonaa equal sum if bracket for. So kaamida range. So range waxay noqon doonaa godkan oo ah description-ka Soomaa. Yes, so godkan ay soo highlight garey. maadaama ay soo highlight gareysay waxaan dhigi doontaa F4 xir then comma ayaa dhigi doontaa Soomaa. So waxaa ka baahan criteria waxay noqon doontaa godkan ay ku qoran tahay expenses ka postage expenses ayaa criteria ku noqon doontaa. Then comma ayaa dhigi doontaa same range. godka isku soo dara godkee waay
waa paymentii godka. Then waxaad dhihi doontaa F4 ii xir. Then waxaad dhihi doontaa control enter. So ujeedaa sooma. So postage ayaan bixiyey, meeqaan bixiyey $10 aan ku weyneeyo saad u aragtid. So ma jeedid. So postage ayaan bixiyey $10 ayaan bixiyey. Packaging weli maanan bixin. Coffee $5 ayaa ku baxay. Miscellaneous waxaa ku baxay 15. had tusaalahan oo kale haddii aan bixiyaa packaging 4 bisha 10aad 2018 ayaa waxaan bixiyey packaging. info si numberkiisu waa 106 oo kale waxaan bixiyey lacag $10 so automatically waa ujeedaa way isbedeshay. So sidaas ayaad kula soconaysaa bitikaashkaaga. lacagta khasanada ku haysana waa 260. So intaani expenses ka badan ayaa marka qaar suurtagal ah in loo baahdaa. So suurtagal waxa ah in aan u baahdaa expense kale oo dheeraad ah, tusaale kale transportation expenses oo dheeri ayaan u baahday. So waxaan rabaa inaan ku soo darsado. Sideen ugu soo dari karaa halkaana isla markii ka soo muuqato. Waxaa si yar oo fudud aan u sameynayaa oo halkaan aan ka dhigayaa table. So waxaa la gareynayaa halkaan table ay ku qoran tahay aan imaanayaa. So table as it is okay. So mujida saan mid cusub ugu daraa waxaa imaan doonaa salka u dambeeya waxaan dhihi doonaa tab. Waxaan qori doonaa transportation expense. So mujida soma okay aan qurxiyo. So mujid so halkaan markaan imaado automatically way ugu jira transportation halkan. So taariikhda aan qoro taariikh laan igama yeeli doono 5 bisha 10aad 2018. So mujid so invoice number ku waa 107 waxaan bixiyey lacag $15. So mujid balance wuxuu noqday 45 transportation ku sidaas ayaa bitikaashkaaga ula soconaysaa. So lacagta hadda khasanadii ugu jirto ah 245. soo kale waxaan halkan si fudud u ogaan karaa expense kasta lacagta aan ku bixiyey. So postage waa kana, packaging waa kana. So mid kale cusub u baahdana isla sidoo kale ayaad ugu soo dareysaa. So aad u fudud yahay in la sameeyaa bitikash management. So cashirkii maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.